iyadoo muddooyinkanba ay socotay maxkamadeynta qaar ka mid ah Soomaalidii lagu eedeeyay inay lusadeen lacag gaadhaysa 250 milyan oo doolarka Mareykanka ah, taasoo loogu talagalay in lagu quudiyo carruurta xilligii uu socday xanuunka safmarka ee coronavirus oo ugu talagalay dalka Mareykanka, ayaa waxaa maanta maxkamad la hor keenay mid ka mid ah dadkii lagu eedeeyay inay lusadeen lacagtaasi, kaasoo maxkamadda horteeda la sheegay inuu ka qirtay dembigaasi. waxaana saaka lagu arkay afaafka hore ee maxkamadda St. Paul ee dalkaasi Mareykanka afaafkeeda hore oo ay soo buuxdhaafiyeen qaar ka mid ah warbaahinta. sidoo kale waxaa halkaasi goobjoog ka ahaa Cabdixakiin Xarta Shiikha oo in badan arrimahan indhaha ku hayay, sidoo kalena aad uga faalloonayay. waxaana la arkayay mid ka mid ah dadkii saaka maxkamadda la hor keenay oo muuqaalka uu qabanayay kadib markuu maxkamadda ka soo baxay isagoo isqabilay islamarkaana koofiyad iyo agab ugu talagalay in wejigiisa uu ku qariyo. waxaana la arkay sidoo kale isagoo ka cararaya saxaafadda, ayna saxaafaddu su'aalo weydiinayaan waxa ka soo baxay maxkamadda iyo weliba sida ay wax u jiraan. Cabdixakiin Xarta oo ku sugan afaafka hore ee maxkamadda ayaa muuqaal kaamira ah ka duubay islamarkaana la daba socday cabbaar. ninkan oo lagu magacaabo Cabdiqaadir oo da'diisa lagu sheegay 40 jir ayaa la sheegayaa saaka inuu maxkamadda ka hor qirtay inuu galay dembigaasi horena. waxaana la sheegayaa wararku inuu ninkani dembigaasi iska fogeeyay, sidoo kalena sheegay inaanu wax lagu ku lahayn, balse maanta warar hoose oo laga helayo maxkamadda ayaa sheegaya in ninkani uu qirtay dembigaasi. daba waa kan Cabdixakiin Xarta Shiikha muuqaalka uu ka duubay ninkani, sidoo kale isagoo ka cararaya warbaahinta iyo weliba dadkii halkaasi ku sugnaa oo su'aalo ka weydiinaya arrimaha kiiskii lacagtii loogu talagalay carruurta xilliguu socday coronavirus, kaasoo la sheegayo inay lusadeen dad Soomaali u badan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكسوغنا هاي فدرال كورتي نيوسكي دون تاغنيين waxaa la sugayaa عبد القادر علي Soomaali 40 jir ah oo isagu ka mid ahaa dadkii dhacay raashikii lacagta carruurta. marka insha Allah dhiil ayuu qaatay maanta. saxaafadii dhanna waa taagan yihiin, aniguna bartaan ayaan taaganahay, waa kuwa newski oo dhan horaan taaganahay. marka insha Allah wuxuu waray ka soo kordhaa Somali community ana idinla wadaagi doona haddii Ilaahay yiraahdo. saxaafadii oo dhan waa wada aragtaan, bartaasay taagan yihiin, aniguna waa ka mid ahay saxaafadii ugu afka dheereed ee Soomaaliyeed baan ahay. marka insha Allah hadda la soo dareerayaa de wixii waray ka soo baxay waa idinla wadaagi doona haddii Ilaahay yiraahdo. waa taas xaalad halka igala socda maanta. waa kan soo baxay Cabdiqaadir soo baxay oo soo baxay waa kaas Cabdulqaadir Cali Soomaali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكسوغنا هاي فدرال كورتي. suga. Can you open? waa u cararay Mr. Cabdul, saxaafadda dhan baa ka waa kaasa Soomaali Cabdulqaadir Cali Soomaali weeyaan. waa kaas Cabdulqaadir Cali oo Soomaali ah. waa diidan yahay in lala hadlo, wuu sii socdaa, waa u jeedaan. Mr. Cabdul, su'aal ma ku weydiin karaa saaxiib su'aal ma ku uu sii cararaya Cabdulqaadir aragtaan. waa u baxay. insha Allah wixii lagu dhameeyay ayaan soo gaan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. waa u cararay Mr. Cabdul. insha Allah idinla wadaagi doonaa insha Allah bidnillaahi kariim. waxaa wixii ka soo baxa meeshaan saxaafadda suu cararaya waa u jeedeen. Mr. Cabdulqaadir Cali Soomaali 40 jir ah, kana mid ahaa dadkii kiiska raashinka carruurta dhacay. run ahaantii hadhow ayaan idinla wadaagi
وادي سلامة يا أصحاب تقاليقة ميلك استود جوكتان أبان دين سلامة يا آد سولا هذا حرت الشيخ ميلك استود جوكتان وادي سلامة يا waxaan saa aragtaan meeshaan ku suganahay waa u jeedaan dhammaantiin waa idin wada salaamayaa meel kasta joogtaan xerta shiikha meel kasta joogtaan waa idin salaamayaa waxaan ku suganahay Saint-Paul waxaan ku suganahay Federal Building hortiisa sidaad la socotaan maanta waxaa maxkamadda la soo taagayaa oo dhiil qaatay weliba maxkamadda maanta waa maxkamad aad iyo aad cajiib u ah cabdulqaadir cali oo 40 jir Soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadkii dhacay lacagta raashinka caruurta cabduul waxa uu sheer la lahaa wiilkii kale ee magaciisana aan idiin soo sheegi doono uu maalintii dhaweyd ku markhaati furayay ninka la yiraahdo madrasa ee Etoobiyaanka ah labada wiil ee isku last name-ka ahaa marka cabduul markii hore waxa uu yiri galti meehi maalmii hore waa ka warwareegay maalin dhaweyd ayuu wuxuu qirtay inuu galti yahay marka maanta dhiil buu qaatay sheekada maanta waa sheeko cajiib ah hadda waxaan ku suganahay Saint-Paul laakiin waa laga bedelay Saint-Paul Minneapolis baa loo bedelay Minneapolis baan hadda sii aadaya haddeeray bilaabatay marka insha Allah waa ka gaaraya laakiin maxkamadda maanta waa maxkamad cajaa'ib ah Soomaalidu marka hore waxbay walwalaaqdaan laakiin marka dambe ayay isla xumaadaan marka hore waa wada walaalo maanta maxaa dhici doona maxaa maanta ka dhici doona goobta Minneapolis maalintii la weysaa aragtaan waxa ay ka dhacday Saint-Paul hadda Saint-Paul baan ku suganahay waa u jeedaan Soomaaliya dhammaantiin waa federal court hadda meesha aan ku suganahay Saint-Paul marka maxkamadan maanta waa maxkamad aad iyo aad xiiso u leh sababta u leedahay waxa weeye waa in dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan dhiiqada ay marka hore wada walaaqanayaan walaalaha ku yihiin marka dambe inay ka baxaan cabdulqaadir cali 40 jirka Soomaaliga waxay sheer wada ahaayeen muddana ay saaxiib ahaayeen nin kale oo isagana ay isku laasneem yihiin Minneapolisna aad looga yaqaano marka maxaa ku kala dhex dhacay markii hore iyaga Etoobiyaankii baa ku markhaati furay oo yiri wax ay qaybiyeenba haba yaraatee ma jirto waxaan sugayaa baabuurkayga iimaanayay wax ay qaybiyeenba haba yaraatee ma jirto laakiin markii dambena labadoodii maxaa ku kala dhex dhacay waa taariikh aad iyo aad u dheer waa idinla wadaagi doonaa dhammaantiin hadduu ilaahay yidhaahdo Soomaalidu marka hore ayay qulunka wada walaaqdaan marka dambena way la xumaataa marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa insha Allah Minneapolis baan hadda ku socdaa Saint-Paul baan ka baxayaa maanta iyo Minnesota halkaas ayaan idin ilaahay yiraahdo aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa meel kasta joogtaan waa salaamantihiin waxaan sugayaa baabuurkii ii imaanayay anoona wax ku dhacay maanta waxaan idin leeyahay xaaladdu halkaas ayay maraysaa marka hore Soomaalidu waa wada walwalaaqdaan marka dambena kabtay maaragtaa ka dhacday kabtay maaragtay ismaba naqaanay meesha timaada ayey yaa Faadimo Felis Maxamuud kuwaas Soomaali waa kuwaas Soomaali waa kuwa ku qusqaata walaala Faadimo Sheekh Yamaani sheekadiisa waa sheeko waalan he's believed guilty buu yiri guilty baan ahay buu dhahay anigu ma oranin jaahilnimada iska daa Faadimo Felis Maxamuud luuqan kugu soo diraya magacaaga biin baaban ku dhajisanaya isug aan isgaran shaad ka qaato Faadimo waxaan rabaa inaan qanciyo Faadimo waa ku qancinaya walaal anigu ma oranin waxay tiri waxaan arkay Sheekh Yamaani oo xor ah oo hore noo tiri waa la xiray Faadimo thank you so much inaan ku qanciyo aad baan u jecelahay Sheekh Yamaani anigu ma oranin waa la xiray ma oranin isaga waxa uu yiri galti baan ahay maxkamadduna waxay tiri galti bal Soomaaliya aniga gabadhana kala saara walaalo maxkamaddu waxay tiri galti isaguna wuxuu yiri anaaba qirtay markii dambe sheekhu waa soo fariistayo wuxuu yiri dadka wax iga sheegay ma cafinin laakiin kumuusan oranin galti meeyi taa ku xisaabtan Faadimo aad baan ku salaamayaa hadhow waan ku qancinayaa insha Allah bidnillaahi kariim hadhow baan ku qancinayaa laakiin Faadimo ha iga dhigin inaan anigu iri waa la xinayaa no intaasoo qofoo Soomaaliya meesha ku jirta isagaa wuxuu yidhi galti baan ahay wuu qirtay dembigiisa markaa Faadimo waa ku qancinayaa waa kuu soo diraya hadduu ilaahay yidhaahdo haddaadan luuqadda aqoonna waa kaa deeqa warsame waxay tidhi newska US oo dhan ayaa sheegay alla yaa cisig kaltuun alla yaa cisig
faaduma dadkaas akhrisa kommentiyadooda adigoo qabow oo degan dadkaas akhrisa ha boodboodin aad baan idiin salaamayaa isuga waxaan war gabadha faaduma weli ha la qanciyo faaduma messajka ha iga soo dheh faaduma erey kulul bay tiri waxay tiri sheekh yamaani baad hore noo tiri bay tiri waa la xidhay waana xoro waan arkay aad baa iga qoslisay aad baan kuu salaamayaa walaal sheekh yamaani isagaa afkiisa ka yidhi galti baan ahay wixii lagu soo ogoo dhan waa qaatay markii dambena USA oo dhan waa laga ogyahay anigu ma oranin isnad mi xaraam alkadba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annaar aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin insha allah faadumaan luuqa u